qodobkan aynu ka hadlayno waa qodob aad qiimo weyn u leh oo qaali ku ah bini aadanka dhaqaalaha marka dhaqaale laga hadlayo waa dhaqaalaha marka dhaqaalaha laga hadlayo waxa la qiimeeyaa bal ila maalinkii 91kii iyo hadeer bal waxa inaga dibadda inooga yimaada inay isdhimeen ee aynu dhaqaalaha ku doonano iyo inta kaabe ee ummaddu u baahan tahay dayacane aan wali la kicinin marka aynu dhaqaalaha ka hadlayno warshada sibirka inaynu dib u eegnaa aad u fiican xildhibaan Cabdulqaadir khayr Allah siiye gudigoodu barnaamijku hadda ka sheekeynayay waxaan qabaa siyaasad aan ahayn teena in qolada ajnabiga ku dhaqmaan mar alla marka beeruhu soo baxaan yay haruur keenaan haruurkii soo baxay bay keenaan oo dadka baahidoodii bay yay isticmaalaan in aanay waxba soo saarin in bariis loo kariyayna bariis beeran maayo that means nin cunto loo keenay dawlad cunto hay'adi u keentay waa qaxootina waa taqaanaan marka maalinka raashinka laga gooyana waa kala dareeraan marka la keenana way isu yimaadaan waxaan qabaa anoon bananka kala sii fiirinaynin labada bane qool caday iyo kan wajaale waxa ka soo baxa dalka waa ku filan yihiin labadeeni banna waxba kama baxaanba warshadii sibirkana waxaad marxaati ka tihiin wadooyinkeena inay jabiyeen baabuurta sibirka isjiidiyada ah ee Itoobiya ka imanaya iyo kuwa Masar iyo Cumaan maraakiibtu ka keento inaynu dawladda hadaynu tala siinayno niraaho bal aanu kala kaadinay sibirkan at least qarash la geliyo si looga helo dhaqaale fara badan shaqo abuur gaadiid iyo dadba shaqa laga heli lahaa waxa kaloo aad u yaraan lahaa boqolkiiba boqol yaraan lahaa lacagta inaga baxda sibirka iyo marmarka iyo waxa soo dhan warshadaynu yeelanay marmar ah sibirka isticmaalayaan teema meesha ay Cumaaniyiinta kuweeda doonanayaan warshadeena sibirka ka waxaysan lahayn beeraha labada meelood banki qool cadayna dabayl baaba kugu dilaysaa war hal ay beero ibu leeyahay labana degana geedna kuma yaalo mar alla markaad banka gaadhaad galaysaa dabayl kan wajaalana I'm not believe in ay si fiican wax uga baxaan oo looga beero waxaan oran lahaa oo ku soo dhawaan lahaa ragga iga dambeeyaan u deenayaa war qool cadayna intuu banaan yahay wajaalna waxa ka soo baxaan la isticmaalaynin berberad sibirkeediina oo iska wali xiran yahay warshadii halkeedii tahay inaynu dhaqaale ka hadalaba maaha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.